صلى الله ربي صلى الله حسبي على النبي نجل عبد الله ربي صلى الله حسبي على النبي نجل عبد الله رحمة الأنام كعبة الكرام محمد نجل عبد الله ربي صلى الله حسبي على النبي نجل عبد الله munaasabad weyn oo isugu jirtay weyneynta dhalashada nabigeena suuban nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee iyo qalin jabin arday dhameysay quraanka kariimka isla markaana lagu gudoonsiinay shahaadooyin ayaa maantay lagu qabtay madrasada Al-Huda oo ku taal degmada Warta Nabadda gaar ahaan xaafadda Xamar Bile ee magaalada Muqdisho. munaasabadan ayaa waxaa soo agaasimay macallin Axmed Maxamuud Xasan waxaana ka soo qayb galay culimaadudiin macallimiin mashaayikh odayaal iyo marti kale. ugu horeyn waxaa munaasabada lagu daahfuray aayado kamida kitaabka ee A'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wadhkurullaha fi ayyaamin ma'duudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. sidoo kale qaar kamid ah ardayda qalin jabinaysay maanta ayaa waxay soo bandhigeen quraankii ay barteen iyo kitaabka Tuhfatul Atfal oo ay wada akhrinayeen. afara'ayta alladhi kafara biaayatina wa qala la utayanna lahu walada اطلع الغيب اتخذ عند الرحمن عهدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان. qaar kamid ah culimadii iyo mashaayiqdii ka soo qayb gashay munaasabada oo kamid ahaayeen
sheekh maxamuud maxamed axmed oo loo yaqaan sheekh maxamuud dheere, sheekh daahir abshir cabdi iyo sheekh maxamed macalin xaamud ayaa goobta ka hadlay, waxayna aad u faahfaahiyeen ixtifaalka nebiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee iyo ahamiyadda qur-aanka kariimka. qofkii saaxiibul qur-aanka ah labadii dhashay waxaa loo gelinayaa taaj ka nuur badan, qorax 4 saac joogta ka nuur badan baa loo gelinayaa. dumcajamiyad madaxa waxaa loo saarayaa ka nuur badan, qorax 4 saac joogta. nabi maxamed yiri sallallahu alayhi wasallam, maxaad asaga u malaynaysaa haddii labadii dhashay waalidkiisiiba hadiiba uu helay taajkaa ku helay, maxaad asaga waxa la siinaya u malaynaysaa? waxa saa helaya barwaaqada helaya kii inta qur-aanka bartay ka saaqiday ma ahan, ee waa kii qur-aanka inta bartay culumta kale ku sii dartay, qur-aankii fahmay oo la baray oo ku sii dhaqmay lewa. inaan sidaas noqonaan la gudboono sidaa u sii dadaalno. ee cunugu qur-aankii oo bartay iskuulku ii dhiganayaa, hadda uun ogow iskuulku waa adduunya un la soco, wuxuuna ku lumaysa adduunyada ku lumaysa ma xuma, adduunyadu ma xuma sida ma xuma, laakiin ogow waxa adduunyadii ku lumaysa cunuga aakhiradiisa iyo qur-aankii ku hilmaamaya. qur-aankii hadduu hilmaamana dee waxa u tarta lama arko waalidkii cunuga naar u horseeda inuu qur-aankan lafdigiisa hayo, macnihiisana sii barto oo cunugaani horumar gaaro oo noqdo mid ku anfaca aakhiri adduunyo. saas qofka la gudboon. nabiga sallallahu alayhi wasallam cid walba inaan ka jeclaano oo sida aan wax walba uga jeclaanayna waxay tahay wixii nabigu rabo inaan la rabno, wixii nabigu diiday in la diidno, wixii nabigu uu jecel yahay in la jeclaano, wuxuu nabigu yeeli jiray yaalno, wuxuu nabigu iska daayay in iska dayno. markaasaan waxaan nahay dadka isku mid noqon mayo ogow sidaan nabiga itibaaciisa ugu kala dadaali ognahay unbaa maxabadiina noqonaysa. xataa qofkii dembiilaah oo nabiga maxabadiisii ku jirto nabiga jecel laftiisuna eber ma ahan. xadiidkaas markaas kaga baxayaahe iyadoo meeshu faahfaahin dheer u baahneed waqtiga awgiisaan waxaa leeyahay nebi moxamed sala allahu alayhi wasalam nibaa loo keenay. markaasaa waa nin khamre cabaya ha la karbaasho, karbaashkiisiiyaa la cunsiye waa la xaday. maalin kalaa misna la keenay, khamru nebi alloo cabay misna waa la karbaashi. maalin kalaa misna la keenay, khamru cabaya ha la karbaasho waa la karbaashi. nimankii maalin walba karbaashayayna ku xanaaqeen. mid ka midha wuxuu yidhi alla ku hooji akhza'aka allah ma akthara maa yu'taa bihi, alla inta la keenay ninkan isagoo khamre cabay badana ilaahay ku hooji. riwaayadeenna gobolkoodna wuu lacnada bay ahayd, lacanaka allaahu alcanaka allaahu. aad baa wax weynuu ninkaan isku riday. marka canaanuu kaga dhigaya haddi habaarna kama mara, balaaya kugu dhacda maalin walba isagoo khamre cabaa la keenaya ruux xumaa. nabigu wuxuu yidhi laa taquluu haakada walaa tuciinuu calayhi shaydaan, war ha habaarinina, war shaydaanka ha u heelinina. ninka shaydaan iyo isagaa dagaal ka dhexeeya. markuu khamrada cabo shaydaankii ka adkaaday. intuu iska ilaalin kara markuu iska ilaaliyo qofku markuu macsida ku dhaco waa mar shaydaan ka adkaaday. haddii aad tidhahda alla ku hooji aad tidhaahdaan shaydaanku ha kaa guulaysto shaydaan raac le weeye, ninka halkaa ha ku habaarinine. miyaa nabigu wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam waxaan ogahay markhaatiga ficnaantiisa u fiirsan. waxaa nabigu ogahay yidhi sala allahu alayhi wasalam annahu yuxibu allaha wa rasuulahu, ilaahiyo rasuulkiisa inuu jecel yaan ogahay. riwaayan gobolkeedna war miyaadnan ogeyn uu yidhi nabigu inuu ninku ilaahiyo rasuul jecel yahay, maxaa saa ugu habaaraysaa? waa nin khamre cabaaye ogow. nebi moxamedna muxuu ugu markhaati kacay war miyaadnan ogeyn inuu aliya rasuul jecel yahay, anaaba og inuu alluya rasuul jecel yahay. habaarka sidaas ka daaya. wuxuu mudan yahay in la yidhahdo alla ku hanuuni in la yidhahdo oo shaydaanka looga hiiliyo, asaga loo hiiliyo, ee inta la habaaro shaydaanka loo hiiliya ma ahan. marka maxamada rasuulullahi moxamed sala allahu alayhi wasalama waa midda iimaankanagu ku xiran yahay. oo haddaan nabiga wax walba ka jeclaana iimaankanaga kaamila. haddii nagu yaraato maxabadu hoos ay u soo degtana iimaankanaga saan gelaysa. haddii nabiga maxabadiisa nala ka waayana bilkulliyati iimaanan lala kaga waayo. saddex waxyaalood qofkii laga helo qofkaas wuxuu haystaa xalaawatul iimaan. midda koowaad waxay noqonaysaa an yakuuna allahu warasuuluhu axabba ilayhi mimaa siwaahuma. qofku waa inuu ka jecel yahay ilaah ya rasuul, waa inuu ka jecel yahay wax alla wixii ka soo haray, oo waa inuu jecel yahay rabbi subxaanahu watacaala iyo nabigeena sala allahu wasalam wabaraka calayh, waa inuu jeclaado. marka qof walba waxaa loo baahan yahay ikhwat alciza jacaylka nabigeena calayhi salaatu wasalaam. nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi laa yuuminu axadukum xataa akuuna axaba ilayhi min waladihi wa waalidihi wannaasi ajmaciin. wuxuu yidhi nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalam
qofkiin iimaan laga heli mahayo iimaan ma yeelahay ma rumaynayo buu nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaa waxa weeye layga jeclaanayo waalidkiisa iyo waladkiisa iyo dadkoo dhan haddaba waxa weeye qof walba waxaa loo baahan yahay inay ka jeclaato nabiga calayhi salaatu wasalaam naftiisa iyo waalidkiisa iyo awlaadiisa waa inuu ka jeclaado nabiga calayhi salaatu wasalaam waad ogtihiin sayidina cumar ayaa wuxuu u yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu yidhi nabiyullaahi maxamedow waan kaa jeclahay awlaadayda iyo maalkayga iyo waalidkayga dhan waan kaa jeclahay ilaa naftayda mooyaane nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi iimaankaadu kaamil ma aha markaasuu wuxuu yidhi nabiyullaahi maxamedow haddaan kaa jeclada xataa naftada igu jirtaa haddaan kaa jeclaaday nabiga calayhi salaatu wasalaam nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi yaa cumar al'aan hadda iimaankaadu kaamil yahay ayuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam marka ikhwata alciza waxaad ogaataa naftaada waxaa kaaga muhiimsan nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa kaaga qiimo badan oo ilaahay ka qiimo badnaysiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam annabiyu owlaa bilmu'miniina min anfusihim baa ilaahay leeyahy manaa waxaa weeye dadka mu'miniinta ah nebiga uga habboon nafyaalkooda uga habboon oo nafta adiga aad leedahay waxaa kaaga qiimo badan nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay baana noo sheegay casa wajal nabigeena calayhi salaatu wasalaam se u jeclaayeen saxaabadii nabiga sala allahu calayhi wasalam haddaan ka soo qaadana qayb ka mid ah sayidina cali ayaa waxaa la weydiiyey se u jeclaydeen nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu yidhi kaana wallaahi axaba ilayna min amwaalina wa awlaadina wa aabaa'ina wa umahaatina wa min almaa'i lbaaridi cala damai wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay waxaa nagala jeclaa nabiga calayhi salaatu wasalaam maaliyaalka waa nagala jeclaa waxaa kaloo nagala jeclaa awlaadeenna iyo aabbayaalkeen iyo hooyooyinkeen waan ka jeclayn buu yidhi xataa waxaan ka jeclayn buu yidhi annaga oo man haddii biyo naloo keeni lahaa qabow xataa waa ka jeclay nabiga calayhi salaatu wasalaam adiga oo man haddii biyo laguu keeno aada u haraadsan waxaa jeclaan lahayd biyahaas inaad ku ongoysa ayaa jeclaan lahayd marka maca daalika nebiga sala allahu calayhi wasalam saxaabadu way kasii jacayl badnaayeen ayagoo haraadsan in biyo qabow loo keeno waxay kasii ka jacayl badnaayeen nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaad arkaysaan macallimiinta culimmada diinta bixinayso iyo macallinka isgoolka taagan isku sharaf ma aha waad aragteen macallinka isgoolka ka bixinaayo haddii laga soo taga u dambayso culimmada ummadda diinta barayso mar walba ummadda xaqa ku hogaaminaysana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu siinaa dad dhaxala oo hadday xataa dhintaan u ducaynayo diinkan waxa ay baray sheeqayga hebel hebel ilaa u naxariis culimmada maalin walba ka arkaa loo ducaynayo sharafta dhan oo idil waxay ku kooban tahay diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ilaahay wuxuu lahaa laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum afalaa tacqiluun waxaan idiin soo dejinnay kitaab qur'aana oo sharaftiin ay ku sugan qiimihiina uu ku sugan yahay ma waadnan caqli lahaynina ma waadnan ogaynina kitaabka diinta ilaahay inay sharaftayda ay ku jirto ma waadnan ka warqabinina in kalaamullaahi maxaa ka sharaf badan kalaamka ilaahay waa kalaam ilaahay uu ku hadla subxaanahu wa tacaala waa kalaam loo soo dhiibay malaa'igta ruuxa uu khayrka badan oo jibriil ah waa qur'aan lagu dejiyey nebi maxamed oo makhluuqa ugu sharaf badan waa qur'aan lagu dejiyey labada maxal oo adduunka ugu sharaf badan alxaramayn ashariifayn maka iyo madiino qur-aankii lagu dejiyo marka sharafta dhan waxay ku jirtaa qur-aanka sharafta dhan waxay ku jirtaa diinta ilahay wuxuu leeyahay caqli ma lihidin miya waxaa laga yaabaa meelo kale inaad sharaf ka raadinayso laakiin mar walbaba waad ogtahay nin walba oo diin macnaa adduunkan waxa weeye culumta kaloo la barta wuxuu taxti u yahay ama uu hoos imaanaa culummada masaajidda oo marba hoos imaanaa mas'alo kale doo ka khaldanta uu imaanaa maxaa yeele maba gara kara masaa-ishoo dhan baa ka maqan waxaa laga yaabaa dhinaca kale inuu awoodda uu saaray waxaad kaloo ogaanaysaan meel walba aad wax ka bara tagtaan halkaana saldhig idin ah macallinka qur-aanka idin baray ayaa saldhig idin ah isgoolaadka hadda haddii laydin geeyo idinkoo qur-aanka baranina kulli waa laydin soo celinaa isgoolaadka laydinla cararaayo haddii laydin geeyo dib baa laydin soo celinaa waa inuu macallinka idin dhisa marka u horrayso asaa idin dhisaayo asaa idin farbara meeqaa dhib laynka maray farbarka lagu baraayo meeqaa dhib lagaa maray meeqaa macallinka dhiigga ku kacay markaad wax qori weysa amba waxaynayso halgan dheeraa lagaa soo maro dhibaato fara badan lagaa soo maray isgoolaadka waxay dhigayaan cunug lasoo tababaray oo aqoon leh ay wuxuu dhigaan haddii aadna gacantaada wax ku qori karin see wax lagu baraa dhibka uu weyn macallimaa soo mara
ولذلك إلهي سبحانه وتعالى مركو كهلا وحوره إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وحين كنت جني قرآن عربي لغة العربية قالوا كنت جي محل كنت جي لعلكم تعقلون عقل لي هذا كرداي عنو قلب عنو كقرآن بدأ وكم مسكح بدأ ولو في المها قرآن كالله بري المها قرآن كالله بري هو قرآن كالله بري قرات بدن عقل بدن وحفهم بدن هداد خضرتان معني سي دين تأسيفها انتان كبسي درن wax badan ayaad uga doontaan oo adduunka aakhirada ku saabsan aakhiradiina wax badan ka uga doontaan adduunkiina wax badan ayaad ka uga doontaan gabagabadii munaasabada qaar kamid ah ardaydii dhameysay quraanka kariimka ayaa waxaa la gudoonsiiyay shahaadooyin iyo hadiyado qaali ah waxaana xusid mudan in ardaydii la gudoonsiiyay ay iyagana markooda ay hadiyado qaali ah u keeneen macalinka sidoo kale waxaa goobta ka hadlay qaar kamid ah waalidiintii ka soo qayb galay munaasabada waxaana markii dambe duco ku soo gunaanaday mid kamid ah waalidiinta macallin Axmed ma sha Allah tabarakallah waxa u maleynayaa ciyaal badan ayaa iigu qalin jabiyay meeshan waxa u maleynayaa cunugga toddobaad inuu yahay ma sha Allah tabarakallah wallahi aadan ugu faraxsanahay farxadeeda ma la soo koobi karo alxamdulillah ilaaha ma hadda say u sugnaatay macalinka waxaan ilaahay ugu baryayaa inuu cibaado suban iyo ajar xasanaad aan soo koobi karin ilaahay ka sii inta waxaan ugu duceynayaa ilmaha quraanka dhameeyo kulli wiilal iyo gabdho inuu ilaahay noo xifdiyo waqti xuna lagu jiro inuu ilaahay noo xifdiyo oo awlaad saalix oo baariyaal oo waalidkood iyo diinta ku dhigan ilaahay ka dhigo insha Allah tacaala waxa halkan ka matalayaa waalidiinta sharafta leh hooyooyinka qaas ahaan hooyooyinka anay soo wakiishaan waxay gudbinayaan kulligood hambaliyo إلى خاتم خير معلم الموسى إلى أنت ماشي اسكتي معلمك يا أدليس إلى كور خدك إلى مسلمان أنت ماشي اسكتي إلى والدين يا أيامت إلى عفي والدين عفي ولا له إلى عفي درسك إلى عفي اسمي كوردن إلى عفي إلى خاتم خير معلمان إلى مسلك مالو تشوق مساعد خير غبطة فرص قد لو خلوه قلت الإسراف يا الناس يا جرجال إلى هوسي مسيب أنت مسلك أنت مالو تشوق إسراف يا إسرائيل الناس يا جرجال إلى هوسي معلم كلام معلم كي دين كي سلقة أفرحه دين كي سلقة أفرحه معلم مدرة ومعلم مسيرة إلى كذي فاتح ugu dambeyn waxaa xafladda soo xiray macallin Axmed Maxamuud Xasan oo ah macalinka madrasada wuxuuna u mahad celiyay dhammaan intii ka soo qayb gashay munaasabada waxa u mahad celinaynaa dadka ka soo qayb galay culimadii mashaayikhda waaweyneed oo ay noo timid oo ilaa waqtigooda noo soo horeen oo qaaliga ahaa ajilada ahaa oo aan soo koobi karin Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Maxamed iyo Sheekh Daahir ay kamid yihiin iyo mashaayikhdeena kale u daaratay ayaguna u daar ku maqan oo naga soo gaari waayay dhammaantood waa u mahad celinayna waxaan leenahay jazaakumullahu khayran saamiini saami xajka lagu aaday waxaan kale u mahad celinaynaa dadka waalidiinta oo ehlu sharafka oo nala shaqeeyay oo inay noo suura gasho xafladani iyo didaalkan nagu garabsiyo nagu dhiirageliyay hadii aan waalid fiican aan haysan lahayn anaguna wax wanaagsan ma aan qabanayn waxa weeye waxaan qabano didaalka waxa ku mahadsan waalidka oo nala shaqeeyay marka insha Allah waxaan codsanayaa marka maadcelintii kelimada ah intaasan ku soo koobay madrasada Al-Huda ayaa waxaa la furay 2004 waxayna kamid tahay madaarista sida weyn looga yaqaan Soomaaliya iyadoo faracyo badan ku leh magaalada Muqdisho iyo qaar kamid ah gobolada dalka waxaana hadda lagu soo kordhiyay in maalmaha Jimcaha iyo Khamiista ay bixiso daraasaad diini ah Maxamed Xasan Cilmi magaalada Muqdisho